Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawadayaal kulanti wanaagsan meel kastoo joogtaan. Kusoo dhawaada akhbaaraadka caalamka ood kala socotaan warbaahinta Caalam Media 24. Warbixinteena maanta waxaa daawadayaal kula socon doontaan xaaladii ugu dambeeyay magaalada Gaza, Israa'iil oo qaati ka taagan jidadka magaalada Gaza oo dhibaatooyin xooggan ay kasoo wajahayaan kadib burbur xooggan oo gaadiidka dagaalka guud ahaanba ay u geysanayaan ciidamada dagaalyahanada kooxaha wax iska caabinta Falastiiniyiinta. hadafkii ay u galeen Israa'iil ahayd Gaza inay maxaabiis soo badbaadiyaan oo beddelkeeda iyagu maxaabiistii ay laynayaan. Maalmihii ugu dambeeyay waxyaabaha ka dhacay magaalada Gaza, sidoo kale qaar ka mid ah ehelka maxaabiista lagu haysta magaalada Gaza oo bilaabay inay cuntada ka soomaan, iyo dhibaato xooggan oo banaanbaxayaasha ka caraysan dilkii ugu dambeeyay ee maxaabiista ciidamada Israa'iil ay u geysteen ay ku hayaan maamulka Israa'iil si xabadda loo joojiyo dibna wada hadalka ay ugu laabtaan. sidoo kale daawadayaal waxaa barnaamijka ku daawan doontaan Maraykanka iyo Israa'iil oo isku maandhaafsan cidda maamulaysa magaalada Gaza kadib markii lasoo gabagabeeyay dagaalka Israa'iil ay ku hayso halkaas. daawadayaal mar kale kusoo dhawaada Caalam Media. haddii aad nagu cusubtahay YouTube-ka subscribe noo saar, haddaad hore noola joogtana video noo share garee, like-na noo saar si bulsho badan aan u gaarno. waxaan ku bilownay xaaladii ugu dambeeyay magaalada Gaza. dagaaladii xooggan ee ka soconayay magaalada qaybaheeda kala duwan ayaa weli soconaya, iyadoo ciidamada Israa'iil duqeymo xooggan iyo duulaano xooggan oo ciidamada lugta ay ka wadaan qaybo badan oo ka mid ah magaalada Gaza. dagaalada ugu xooggan ayaa maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay koonfurta magaalada Gaza, bartamaha iyo isla waqooyiga. mar Israa'iil ay iskala fidiso islahayd deegaano badan ayaad qabsatay, ayaa ciidamada Xamaas iyo kuwa Islaamiga Jihaad waxay bilaabeen siyaabo lama filaan ah in mar kasta meelaha aanay ka filayn ay uga soo baxaan ciidamo badan iyo taangiyo badan ay uga burburiyaan. maalmihii ugu dambeeyay dhibaatada xooggan waxay haysatay ciidamada Israa'iil oo dantu ay ku qasabtay inay mararka qaarkood saadka ciidamada ay u baahan yihiin hawada sare looga soo daadiyo maadaama ciidamadii la gaarsiin waayey iskuna socon waayeen. magaalada labaad ee ugu weyn ee Gaza ee loo yaqaano Khan Younis iyo xerada Jabaliya ee qaxootigu u deganaa ayaana ka mid noqday meelaha ugu daran oo Israa'iil dhibaatada xooggan ay kasoo wajahayso. inkastoo burbur xooggan uu ku soconayo taangiyada iyo agabka dagaalka Israa'iil, diyaaradaha dagaalku inay taag u waayeen, sidoo kalena lala yahay meesha rasmiga ah oo Xamaas ay kasoo ridaysa gantaalada ku hoobanaya gudaha Israa'iil, ayaa haddana waxaa burbur soconaya in dhimashadu aad ay kor ugu sii kacayso dhanka ciidamada Israa'iiliyiinta. maalmaha qaarkood ayaa la tilmaamay inay ciidamo 50 ka badan hadba laga dilayo, iyadoo mararka qaarkood inta shirqool loo dhigo ciidamo badan iyo taangiyadooda lagu baabi'inayo. labada dhinac ee dagaalka u dhexeeya guulaha ay sheeganayaan waxaa badan dhanka kooxaha Falastiiniyiinta oo maalmihii lasoo dhaafay soo bandhigaya khasaaraha xooggan ee soo gaaraya ciidamada Israa'iiliyiinta. maxaabiista ay lahaayeen waa soo daynaynaa ayaa mararka qaarkood ayaga shirqool lagu dhigaya. 3 ka mid ah maxaabiista ugu dambeeyay oo ay dileenna waxay dhibaato xooggan ku noqotay siyaasadda dagaalka Israa'iil, iyadoo dad badan oo banaanbaxayaal ay isugu soo baxeen magaalooyinka waaweyn ee Israa'iil kuwaas oo dalbanaya in dagaalka la joojiyo wadahadalka in dib loogu laabto si dadkooda oo nabad qaba ay dib ugu soo laabtaan. qaar badan oo ka mid ah dadka ehelka u ahaa dadka maqan ee weli gacanta Xamaas ku jira ayaa bilaabay inay cuntada ka soomaan si maamulka Israa'iil ay ugu cadaadiyaan in miiska wadahadalka dib loogu laabto dadkoodana nabad loogu soo celiyo, iyadoo sii badan ee walaaca laga qabo badqabka maxaabiista gacanta ugu jira kooxaha Falastiiniyiinta ee dagaalka kula jira ciidamada Israa'iil. asbuucyadii ugu dambeeyay ilaa 4 qofood oo ka mid ah maxaabiistaasi ciidamada Israa'iil ay gacantooda ku dileen ayaa waxaa bilaabanaya si maamulka Netanyahu culays xooggan loo saaro in hooyooyinka da'da ah ee dhalay maxaabiista xirxiran qaarkood ay cuntada ka soomaan. hooyo lagu magacaabo Sana Labnof oo Israa'iiliyada una warantay warbaahinta Ynet lagu magacaabo Israa'iil ka soo baxda ayaa sheegtay in cuntada ay ka soomayso tan iyo inta loo soo celinayo wiilkeeda oo 32 jir ah kuna maqan gacanta Xamaas. hooyadan ayaa sheegtay kadib markay aragtay maxaabiistii maalmo ka hor ciidamada Israa'iil ay dileen inay garwaaqsanayso in dhibaato xooggan ay kusoo wajahan tahay wiilkeedana ay suurtagal tahay sidaas oo kale in ciidamada Israa'iiliyiintu ay u dilaan ama kooxaha gacanta ku haya ay sidoo kale qaarajiyaan. hooyadan waxay sheegtay maalin kasta ciidamada Israa'iil ay islahaayeen waxbay soo badbaadin doonaan iyo si lamid dadka maxaabiista midadkoodaba loo soo sheego, taasina ay qoys ka sii dhigtay in dadkoodii oo nabad qaba ay heli doonaan. go-aankaas ayayna sheegtay inay qaadatay kadib markay aragtay walaaca xooggan ee kusii kordhaya iyo dhibaatada xooggan ee ciidamada Israa'iiliyiintu ay u geysanayaan dadka maxaabiista. dhanka kale marka uu soo gabagabo dagaalka magaalada Gaza, cidda lahaan doonta maamulka magaaladaasi ayaa la isku maandhaafsan yahay. kooxaha Falastiiniyiinta hore ayay ugu kala baxeen magaaladaasna waxaa maamulayay
ururka Xamaas iyo kooxaha la jaarka ee Islaamic Jihad ay ka mid tahay, iyadoo ururka Fatah ee hoggaanka Falastiiniyiinta lagu tilmaamana uu ka maqnaa magaalada Gaza. Dowladda Mareykanka ayaa la sheegay in dadaal xooggan ay gelinayso si maamulka Falastiiniyiinta ee Maxamuud Cabbaas uu hogaamiyo awood badan loo siin lahaa, looguna wareejin lahaa awoodda maamulka magaalada Gaza. La taliyaha amniga madaxweynaha Mareykanka oo la sheegay in maalmahan Bariga Dhexe ku sugnaa, Jake Sullivan, ayaa la sheegay inuu kulamo la qaatay madax ka tirsan kooxaha hoggaanka Falastiiniyiinta, kuwaas oo kala hadlay sida Mareykanka ciidamo booliis ah oo amniga magaalada Gaza suga aadna u tababaran ugu diyaarin lahaa, taas oo beddelkeed Mareykanku uu mushaaraadkooda bixin doono gacantana lagu hayn doono si Israa'iil aan amnigeeda khatar ugu noqon. Hase haatee, waxaa la sheegay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu inuu ka soo horjeedo, tilmaamayna inaanay u kala socnayn kooxaha Falastiiniyiinta haddii ay yihiin Fatah iyo Xamaas intaba. Netanyahu waxa uu qabaa in magaalada Gaza lagu wareejiyay ciidamo nabad ilaalin ah oo caalam kale ka socda, Israa'iilna ay noqoto warjoogto kor kala soconaysa markaas ay doontana ay faragelin kusoo samaysa magaalada Gaza. Hase haatee, ururka Xamaas dhankooda iyagu waxay doonayaan in guud ahaan magaalada Gaza go'doonka ay ku hayso Israa'iil laga qaado, xabad joojin waartana laga gaaro, sidoo kaleetana la dhiso dowlad Falastiiniyiintu ay leeyihiin oo iyagu hoggaankooda ay qayb weyn ka qaadan doonaan. Dhanka kale, isku dhacyada Lubnaan iyo Israa'iil ayaa sii xogeystay, iyadoo wasiirka gaashaandhigga Israa'iil uu booqday xuduudka Israa'iil iyo Lubnaan, kuna booriyay ciidamada Israa'iil inay feejignaadaan. Sidoo kaleetana wuxuu digniin ka bixiyay haddii ay sii socdaan shaqaaqooyinka ka soconaya xadka u dhexeeya Lubnaan iyo Israa'iil inay jiri karto in Israa'iil howlgalla ay ka samayso gudaha waddanka Lubnaan. Kooxaha Xisbullah ayaa maalmihii lasoo dhaafay tan iyo markii uu bilowday dagaalka magaalada Gaza waxay ku hayeen gantaalo xooggan iyo weerarayna ku qaadaan dhanka xuduudka Israa'iil. Inkastoo walaac iyo kacsanaan badan ay ka jirto magaalada Gaza, Lubnaan iyo guud ahaan Bariga Dhexe, haddana waxaa muuqanaya in dhanka diblomaasiyadda iyo wadahadalka uu dib u bilowday, iyadoo Israa'iiliyiintu ay doonayaan in si hoose wax lagu dhaqo, sidoo kaleetana iyagoo aan dhib badan la soo gaarsiin, lana muujinayo in Israa'iiliyiintu weli awood leeyihiin maxaabiistooda loo sii daayo, halka Xamaas ay doonayso in Israa'iil ay dhulka ku jiido magaalada Gazana ay sanduuq uga saarto, sidoo kaleetana maxaabiista guud ahaan u xiran ee Falastiiniyiinta lagu beddesho tirada yar ee Israa'iiliyiinta ay gacanta ku hayaan. Daawadayaal, intaasaynu ku soo afmeeraynaa qodobkeennii koobnaad oo hadlaynay Gaza iyo xaaladihii ugu dambeeyay halka ay marayaan.